السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر دوادا يوتيوب كابت كريم طاهر فضلنا ديتاي مركو رسبو قشدا سبسكرايب كمصار هاتو حان هيا برنامج كاسو لبا أنا بحي كاسي عدايا ميد كوهري وحالو يقانا سبليت كلاود سيدو كالي أبك حيقاني أسيقنا وحالو يقانا كرونو وحو كاسي عدا إن هذا كو مشغولين موبايل كادا نوتيفيكيشن سكوسو داعي ومسيجات split cloud abkaani wuxuu ku ogolaanaa laba muusig ama laba maqal waxaad doontid u isticmaal laba maqal inaad ku isticmaali kartid dhagaha taleefankaada laftiga bidixda ama right-ka oo kale tusaalaan dhagta bidix oo kale waxaad daaran kartaa maqal haddii cabaar aad dhegaysatid inaad iska damisid waxaa kaloo daaran kartaa tan midig ayaa maqal kale ka daaran kartaa waxaa suubi kartaa marka taleefankaada dhagihiisa bidixda iyo midigta ayaa ku isticmaali kartiin laba qofood application-kan waxa uu adeegsan kartaa mp3 kaliya bas marka wuxuu ka saacidaa laba qofood inay isticmaalaan hal mar ayagoo kala dhageysanayo laba maqal oo kala duwan chrono abkaani wuxuu ka saacidaa mobilekaada message-yada ku soo dhacaya inaa markasta aadan ku mashquulin aadan fiirin oo hol kaaga socod computer-kaada uusan ka mashquulin application-ka Chrono wuxuu ka saacidaa in mobilekaada aad kula xiratid adigoo ka arkayo dhammaan message-yada kaaga soo dhacaya applications-ka ee taleefankaada application-kan qaabka ahaan ugu shooynaysid waxa extension ahaan oo qaybta kore oo wuxuu ka soo muuqanaa oo Chrome-ka ayuu ka soo muuqanaa hadda Chrono ayaa la abkaani markaad doortid hadda 49 messages ayaa yeelan oo notifications Chrono markaad ku dhufatid wuxuu ku soo saaraa dhammaan messages-ka hadda waa kuwan YouTube-ka waxa ay yeelan 26 notifications Gmail-ka Instagram-ka marka dhammaan applications-ka waxyaabaha ku soo dhacay inta ay ku arkay xitaa haddii SMS-ka oo message-yada taleefankaada ku soo dhacayaan qaybtan ayaa dooran SMS-ka aniga hadda wax SMS leeyma soo dirin marka sidaas darteed meeshaan inbox-kayga waa empty oo waa firaaqo hal xabo kuma jiro laakiin notifications-ka oo apps-ka dhamaantoodu waa kuwaani oo inta ay ugu soo muujinaa Chrono application-kani waxa kala soo degi kartaa computer-kaada marka waxa suubinaa app-ka ayaa waxa kala soo degaa computer-ka marka kula soo degto oo ku shubto kadib ayaa waxaan kula xirnaa qaybta mobile-ka waxa soo degsanaa application-ka Chrono marka waxa kula soo degaa Chrome-ka qaab extension ahaan ayaa kula soo degaa marka waxaad galay website-ka chrono.ap/download marka gashid qaybtaasi kan ayaa ku soo muuqanay linkigan oo website-ka qaybtan waxa soo dhigaa description-ka ayaa soo dhigaa ama comment ugu horeeyo ayaa ku soo pin gareena marka sidaan ku soo muuqato waxa dooranay Chrome ayaa dooranay extension ahaan ayaa ugu shubanay oo qaybta geeska extension ahaan wuxuu jeedaa qaybtan kuwan hadda iyaga soo muuqanay meeshas ayaa lagu soo daraa hadda tusaale color pick oo sidoo kale every dropper-ka sidoo kale waxa ku yaalo meeshaani page ruler-ka waxa kale oo ku yaalo mid kale oo yaqaan font signature marka rabtid inaad soo darsatid oo qaybtan uu ku soo muuqdo waxaad galay website-kaani hadda markaas waxaad ka sii dooranay Chrome ayaad ka sii dooranay kadib sidaan ayaa ku soo muuqanaysa kadib waxaad dooranay meeshaan ku qoran tahay add to Chrome markaad dooratid waxa loo weydiin extension ahaan ma ugu darsanay display notifications-ka ku soo muuqanay read that your copy ayaan ugu soo qoran marka waxaad tahay add extension aan ayaa lagu soo daraa qaybtaani kore ayaa lagu soo daraa marka okay hadda waa lagu soo daray qaab extension oo qaybta kore ayuu ka soo muuqanaa marka waxa suubinay cancel ayaad iska dhigay kan okay waxaan rabaa marka qaybtaani hadda hadii uu sidaan oo kala waa cancelay laakiin extension-ka ayaa taga waa kan asiga kaliya bas pinki ayaa unpin dhahay kaliya waa pin gareena qaybta kore oo lagu soo daraa hadda kana okay cancel iska dhig Chrono application-ka kana hadda marka ku dhufto qaybtan ay soo muuqanaysa app-kaani oo Chrono marka hadda waxa ay dhiman qaybta aan kula xirnayo oo taleefankayga hadda extension ahaan waa kula soo degsado oo Chrome-ka kaliya hadda waxa ay dhiman taleefanka marka taleefanka app-ka aan soo degsado waxa scan ka qaadana QR code-ka ayaa scan ka qaadana kadib labadooda way isku xirmayaan oo connecting ayaa ka dhaxeynayso markasta oo message soo dhaco waxaan ka arki karaa computer-kayga application-ka Chrono waxa kala soo degi kartaa Play Store-ka markaad dooratid qaybtan kore ayaa waxaad ku qoray Chrono aniga hore ayaan u raadiyay sidoo kale linkiga waxa soo dhigaa qaybta description-ka kadib waxaad dooranay install oo waad ku shubanay
open ayaa dooranay oo application ayaa furay wuxuu ku weydiinaa Facebook account ma kula xiranay ama Google account. Google account ka ayaan dooranaa oo Gmail ayaan kula xir rabaa. kadib Gmail-da mid kamid ayaan dooranaa. notifications mu ogolaan u dhaa message-da ku soo dhacayo ina permission oo gashay okay oo ogolaana allo meeshaan qaybtan kore corona ka muuqanayo ayaad on dooranay oo hadda waa off. kadib waxa sii dooranaya low back ayaad dhahay dib ay u soo laabanay allow access ayaad dooranay mar kale. kadib allow sii dooro yes sign my calendar allow dooro. hadda marka scan QR code marka scan markaan dhaho wuxuu iga baahan yahay inaan scan ka qaado qaybta computer-ka data inuu socoto kadib labadu way isku xirmayaan. okay marka waxa soo binaa scan-ka ayaa hadda ka qaadanaa QR code-ka computer-ka waa kaasa. okay hadda labadooda connecting waa dhammaan message-yada oo computer-kayga qaybtan ayaa arki kartaa dhammaantood intay ugu soo dhacayaan. Facebook aad messenger aad dhammaan applications-ka isticmaal xitaa message-yada computer-kayga qaybtan ay ugu soo dhacayaan oo telefoonka message-yada iyaga imaado computer-ka ay ugu soo dhacayaan. asxaabta aad iyo aad u mahadsantiin daawashada aad daawateen video